waxaan hadda xoogaa yar ka taabanayaa jihaadka aynu geli doono islaamka makaanada uu ka joogo mucaawiqaadka hortaagan hadda maxaa hortaagan oo ma aragtay oo dhibaatooyinkan dadka muslimiinta dhexdooda balbaladan iyo afkaartan aad iyo aad u waxaysan in ay timaado waxa dhibaato badan oo maanta jihaadka hortaagan ku ah taxriif tiro badan oo islaamka soo galay waxaa la taxriifiyey macna alislaam waxaa la taxriifiyey macna aljihaad waxaa la taxriifiyey macna daaru lxarbi wa daaru silmi waxaa taxriifsamay arrimo tiro badan umma alislaamiya taxriifsatay macnaheedii umma islaamiya maxaa la waayo man umma alislaamiya beledka islaamiga beled islaami keeba ah kee beled islaami la odhan karaa beledka muslimka ay kee weeye maanta beled islaami keeba ah kee beled islaami la odhan karaa dhulkee la odhan karaa dhul muslim wey dhul muslim waxaa la yidhaahdaa dhulka axkaamta islaamka ay ku socoto yaa dhul muslim la yidhahda kutubta fiqiga oo dhan fuqahada o dhan saas u tacriifinaya dhulka ay ku socoto axkaamta islaamka oo sunnadii ay daahir ka tahay oo diinta ilaahay ay ku socoto ayaa la yidhaahdaa daarul islaam dadka ku jooga hadday rabaan gaalaha aadaan dhulka ay ku socoto axkaamtii kufaarta oo aan laga ogolayn shacairta islaamka xukunka ka socdaana uu aysan ahayn xukun muslima dadka ku noolaa hadday rabaan muslimiin aadaane daarulxarbi baa la yidhaha laba xukun bay kala leeyihin daarulxarbi marka waxaa waajiba in lagu duulo oo la zuuliyo xukunkaa meesha ka jira in laga zuuliyo waa la zuuliyo marka qiyaas adugu inta kale adaa dhamaysanaya mafhuumkii markuu dhumay oo innaga oo gaaladii wadanaa oo qaanuunkii gaaladii ku dhaqanayna oo haddii allaba ku ronya gaaladii xaliif laa oo wax walba xun samaynayna haddana muslimiin baynu isu qannaa daarulislam baan isu qannaa waxa weeye gaaladu boqolkii sano inaga tegey oo laga adkaaday macnaha islaamka aad loo tashwiihiyey oo la xumeeyey la fool xumeeyey oo waxaa ka mid ah diinta in si kale loo fasiro ama jihaadka la fasiro jihaadka in la yidhahdo waa mansuukh waa la nasakhay gaaladu saasay ku dadaashaa in la yidhaahdo diintu waxay ku fiday seef oo ma aragtay waa dhiigdaadiyo weeye marka muslimiinta inay ka cararaan dhiigdaadiyo ma nihin anagu dhiig ma daadino diintu saa kuma fido tijaaray ku fidi jirtay hubka dhiga hubkii laga cararo arrin waxaa weeye maaragtay kolka umma alislaamiya ilahay wuxuu ugu talagalay subxaana wa tacaala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas caalamkii maanta yaa hogaaminaya amerika hogaaminaysa amerika xaggee ku hogaaminaysaa fisq iyo fujuur waad ogtihiin waxa maanta ay u saciyaysa waxaa weeye xumaan oo dhan in dadkii xoolo noqdo basharkii oo laysku sii daayo bay amerika u saciyaysaa qiyaadadeedu waa taas maxaa marka macnihii meesha ka baxay annagii marka maanta waxaynu noqonnay inaynu u hoggaansanno dadkaa bahaa'imka ah xoolaha ah inaynu hoggaamiyaan oo aynu qirno qiyaadadoodii oo iska raacno inay tiraa mantiqa fulan waxaan ku leenahay dowladaha asdiqada oo hadhowta lagu soo diro reer hebel iyo dowlad hebel iyo dowlad heblaay oo amerika masaalixdeeda ay gudayaan waa arrin musiibo ah wey mafhuumkaa khaldamay ee aad u khaldamay ee daarul islaam ka khaldamay ee mafhuumka jihaadka khaldamay ee mafhuumka islaamnimada khaldamay waxyaalahaas iyo san ugu weyn oo imaamkii dadka jihaadka fari jiray oo la waayey waxay keentay in kelimadii taxriif galo oo meel loo doono la aqoon waayo oo ninkii jihaada in ninkii kale lagala garan waayo waa lagu xaynaya haddii طaa'ifa mucayana oo magaalo degan magaalo fulan ay tiraahdo annagu xeer baan leenahay xeertayadaan xeer beegti baan leenahay annagaa nidaamkayaga samaysana halkaasaan degannahay shareecana ma rabno nadaaya waa tukannaa shacairtii intii kalaan haysanaa waa tukannaa nadaaya muslim baana waa ku dhalanay mal xukmu xukumku waxa weeye waa la weydiinaya islaamku waa inay qaataan kaafatan kulligiis waa inay munkarka zuuliyaan waa inay khamriga zuuliyaan waa inay islaamka ku socdaan waa inay gabdhahooda xijaabaan waa inay muxuu ahaa la rafciyo muxuu ahaa manaaru lislaam hadday diidaan waa lagula diriraya الطائفة أي طائفة ممتنعة عن الشريعة يقاتل عليها نص علماء ساسي طائفة دي إلى الشريعة كلها قتل ولا الدراية شرع إسلام هدي مثلا نما نجا بحال نجا بغاد هلقا دوبتان أو نجا تجان أو أنت مسلمين تقول كذا بحال إلى هذا نجا شريعة دي أنت أصلا كهي سنينا أنت أصلا ما أقولين محلو سميناه يقاتل عليهم ابن تيمية وعلياي
علماء سوق خلافه والله ولا درا شكي ما لهتا واجمعوا والله درا شيء كذا شريعه كميد هدي ديدان اي شيء من الشرع هدي ديدان ولا درا ما حال ولا دري هدي سنه ديدان كور صلاه الصبح راتبه ما تكنين هدينا يعني انك هذا waxyaalo waaweyn oo sharciga laga tagay imaam ibn taymiya wuxuu leeyahay imaam ahmed laba qowl baa keen buu yiri yuqaatalu maxaa uu tukan weydaan raarda subxiga labada ragco ka horeeya tuko hadaa diidan waa lagu la diraayaa buu leeyahay yani dadka anaga hadda islaamnimadii salaadii waa ka tagnayba Soomaa salaadii aan saga tagnay yaa ina la hadlay ninna gabar baa isqaawisay banaanka maray xor baan ay tiri timaa halka kala jeexatay waa loo yeerayaa ya ukhta al-islam hada la yajuzu fi al-islam إلهي ساس يقول يا هدي ديدو يقاتلوا عليها ما بنانا حر معها قف حر أمجر شريعة الإسلام قف سورة بيالي كرا هدون نلقى يستغرين خمر عبايا ما عبي كرتي خمر هذا والو جد لايا أنا وازيني سنة والو كرباشا أما والو رجمنا لما أقرأ حمانت هدات إلهي بانكو جا سياسي أما شريعة والو قدلايا نبي محمد بن عايا هدات والو قدلايا يقتل بلا حد خذ حلقة قينايا لما أقرأ شريعة الله عياره ciidankii ilaalin lahaa waxa mujaahidka laga sheekeynayo waxaan jihaadka laga sheekeynaa ciidankii ilaalin lahaa shariicada iyo muqaddasaadkeedii way waa inuu jiro ciidan iyo shawka xoog leh oo ilaaliyo ilaa aan fusaaqda iyo fujaarta iyo qutaac duruqa ayaan hawaysanin dadka muslimiinta ay xoolahoodii dhiigoodii dib ay hawaysanin way marka aynu waxaan galayaa baab kale maanta waa la inaga haystaa adduunkii waxba gacan nooguma jiraan masaakiin baana waxaan hor dhoobannahay oo agtaagtaaganahay acdaa ullahi laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dimma ku ilaaha yidhi ayaynu la joognaa maanta marti ayaanu nahay cadowgiisi nin عدوغيسي قعنت أجرة ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي نبات تري جاهلية وقت نبي كروي ننكي غرباء هذا بير غرباء هذا عدو بو صاحبك مودا عدوغيسي بو صاحب مودا ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي ما أنت سياسي نمرنا إن هب إيه العق إيه إسقارسين iyo mudun maanta meesha ay ka gaareen nimankii waad arkaysaan dhulka aniga hadda aan ka imid idinka hadda waxa joogtaan qiimatul xadaara gaalada meesha ugu sareeyay soo ma joogtaan xadaarada qiimadeedii waad joogtaan maanta qiimatul qimam waxa ma idin ma dhiman maxay idin dhiman meeshii ugu sareysay oo xayaatadii basharku u gaaray waa joogtaan maca dalika guri yara oo 3 mitir ما سيحني أنت عن حاجة كويسة نواي بقول كيجي وكلواي ما دعي كرتا أنا أو أنت وحنا لا جايستو أو لا أدون كنا لا جايستو أو بك أدون كنا لا جايستو أو صناعة أدون كنا لا جايستو أو سجارسين أدون كنا لا جايستو أو صداء مساكين أو مجنة ما دعي كرتا إنه إلهي سبحانه وتعالى كراميه وأنا نقول هلا نعم اسكو محر لما شيء اسكو شغله معه waxa hadda caalamka yaala oo tirada badan oo saaka Cabdirashiid uu aad uga sheekeeyay wax qiimo leh ma ilaahay agtiis nasriga inuu ilaahay gacanta noo galiyana كثرة العدد والعدة ما بأهبا عدد iyo عدة ما بأهبا nasriga ilaahay baa haya subhanahu wa ta'ala guusha ilaahay ba gacanta ugu jirtaa asbaabta uu ku bixiyana way kamid tahay عدد يعد يهب waxa way kamid yihiin iyo maal way kamid yihiin laakiin inta ma halak nasriga ilaahay baa gacanta ku haya wama nasru illa min indillah awaamil baa jirta marka awaamilu nasri wa awaamilu hazima aamil baa jira ummadu ku burburaan aamilna ummadaha ku dhismaa kan anaga hadda in haysto in ku burburnay waa kii leeynooga digay waa khilaafka ay burburiyay waa burburnay marka khilaafka markuu inoo nasrina ma basugaysid ba meel laga sugamaysid عوامش مركا الله سبحانه وتعالى بلنك وينو قاضي ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق إلهي سبحانه وتعالى بلنك وينو قاضي
ونصرها ما أم لنا إنسان إله سبحانه وتعالى أسئنه أوفنين هذا شروط لنا معنا مايا إلهي سبحانه وتعالى وأنه أوفنايا هذا شروط لنا معنا شروط محاكم إذا مرك شروط اللي نقربه هرت فقري معها قاعدنا معها الله سبحانه وتعالى تدكي نقهري وحلقة يابا نبي عليه الصلاة والسلام سنة دي سمركين رعنا dadkii badar dagaal kaga galay xoolaha ay haysteen iyo ciidanka ay haysteen intee la eka waxa laga yaabaa gaajada iyo xoolo la'aanta waxa weey min asbaab nasri weey saxaabada nabiga hadda taariikhdu akhrisaaniin dhibaatada ay soo mareen iyo wixii hoogiiba ay soo mareen iyo gaajada ay soo mareen maxaa looga dan lahaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadda cabdirashiid baa si fiican uga sheekeeyay xoolo ma waayin dagaalkii khandaqi maalintii la qodayay ayaa wuxuu leeyahay jaabir ibn abdullah dhagax baan hor istaagay biir dhaqaajin weyni nabigaan u yeernay calayhi salaatu wasalaam godkiibuu galay faaskiibuu ku dhuftay markuu ku dhuftay faaskii ayaa waxaan arkay buu yidhi nabiga oo calooshiisa dhagax ku xihan yahay gaajo keliya saddex beri wax ma cunin kolkaasaan gurigaygii ku orday buu yidhi waxaan u tegey buu yidhi haweentii maxaad haysaa baan idhi waxba ma hayay tiri xoogaa shaciira bur ah iyo waxaan hayaabay tiri waxarta biree nabigii waxaan soo arkay maanta waxartii bay bireysay dabkay ku gurtay baalkiina dub buu yidhi kolkaasuu ay tiri hay ceebaynayna nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo laba nin soo raacay waxaa yeelay wuxuu waa waxar yara wey nabigu u tegey calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi yaa rasuulallah adiga iyo laba nin maxaad haysaa buu yidhi ri yar baa qallayd buu yidhi intuu istaagay buu yidhi muhaajiriin ansaare wixii inoo soo degay kulligana keena walaalkin jaabir baa idin marti qaaday waa la soo baxay gabadhii goortii aragtay dadka soo socday naxdin u dhimatay ridii xuntaayda meesha ay ku gurtay maxaad ii caabaysa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaam u tago waxaad tidhahaa yaysan furin ka furin foornada yay furin digsigana dahadooyay ka qaadi laha uga imaanayo markuu u yimid nabiga calayhi salatu wasalaam digsigii waa hadadii ka qaaday muufadii buu ka buuxiyey cuna waa kacaan intii ku xigtay cuna markii yimaada qolo kale waa la buuxiyaa 300 oo nin baa ka kacday ilaahay xoolo ma waayo horta xoolo ma waayo laakiin maxaa loo gaajisiinaya nimankan sidaan ugu galay nimankan duruus waa la tababarayaa waxa maanta xukunkeena ku dirirayo ogtihiin dadka ordaayo dhan waxay rabaan inay ka tabcadaan oo meesha ka xoogsadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka madaxda laga dhigaayo oo xukunka loo dhiibaayo oo la doonayo inuu shariicada sidaa u ilaaliyo in la tababaraa la rabaa intay meesha tegin maxaa yeelay ummadihii oo dhan baa riqaabulcibaad baa halkaa looga istaajin doona addoonta oo dhan buu madax uu ninkan dadka ummadii o dhan u noqon doona xoolahooda waa inuusan dhicin cirdigooda waa inuusan ku xadgudbin dhiigooda waa inuusan daadin waa in la tababaraa marka gaajada uu soo bartaa xoolaha macnahooda inuu fahmaa la rabaa laakiin qaayadu ma aha xoolo ma aha laakiin waxaa la doonayaa qofkii in la tababaro oo uu noqdo qof hadaf nabiila leh asaga oo gaajaysan mabda u la weyn yahay oo ku dhimanaya oo gaajo iyo haraad u maraya tababar shakhsiga la tababarayo waay inteena kale oo wax bixiya la leeyahay wax bixiya xoolaha aynu bixinayno ilaahay nagama rabo subxaana wa tacaala walillahi khazaa'inu samaawaati wal ard waxba ugama baahna laakiin tababar inaga layna tababarayo oo nin waliba wuxuu haysto wax badan xitaa maaha wax la rabo waxa ilaahay kugu ogyahay way gabadh dhegtaasaan haystaa dhegtii baa ilaahay kaa rabaa taasaa ilaahay guusha ku bixinaya marka ninkan gaajadiisa lagu bixinayaa rafaadka uu marayaa lagu bixinayaa guusha nasriga lagu bixinayaa ninkii wax bixinaya waxa uu haystay shilinkii uu haystay baa lagu bixinayaa iska badaawa haddii ilaahay doono إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين رب هدو دونه سبحانه وتعالى ملائكة بسود جنايا ملائكة قال أنتوا سود جنايا وهذه يعني الآن يا هدو إلهي سبحانه وتعالى سيدوا دونه أيوه سمينايا dad aan waxba haysanin oo masaakiin oo inoo kala ara inuu nin waliba wuxuu haysta jeebkiisa ka soo fogana min asbaab an-nasr way waxa laga rabaa inayna waxba la harin yay badnaan hadii doonayso ilaahay idankiisa waxa waqtigi ayaa ciriiri ah wixii aan rabay inaan sheego dhanna ma wada sheegi karo waxaan rabaa kaliya inaan hadda ku gaabsado wayna badan tahay jihaadka fadaa'ishiisa kolka jihaadkuna aakhiro weey
adduun waxba kuma laha ninkii doona inuu adduun ku tacdo iyo iska daajaan qofka muslimka shariicadu waxay u damaana qaadaysaa diintiisa iyo aqligiisa iyo cirdigiisa inaan waxba la gaarsiin karin waad ogtahay qofkii maanta haddii qofku caayo waa la karbaashaya hadduu qofku dilo waa la dilaya hadduu xoolaaga dhaco gacanta la goynaya adigu haddaad madaxaa ku cayaartay khamar cabto waa lagu karbaashaya haddaad yani waxaa lagu ilaalinaya cirdigaaga iyo nasabkaaga diinta shariicadu waxaa la rabaa qofka muslimka inuu yahay qof uruursan oo ilaashan oo ilaahay baa ilaalinaya subxana wa tacaala waa la ilaalinaya lama rabo marka in lagu bajiyo oo tuugo aad gacanta u gasho sida maantana sidoo kale waxaa la rabaa casiis inaad tahay umma markay tahay ciza ay leedahay oo xor ay tahay waxbay intaajin kartaa xooga bay qaban kartaa laakiin qofku markuu miskiin yahay oo fulaya oo baqaayo oo halkan waa hebel baa idilaya halka balaa igu dhakan yani waxa hadda xamar Soomaaliya ka soconaya xamar baa yaa riiriye Soomaaliya dhan ka soconaya magaalada tagto tuug baa carada oo dhan qabsatay waa la furanaya marada laga qaadanaya go'ay baa laga qaadanaya wixii jeebkii ugu jira laga qaadanaya bawlka raba laga qaadanaya qofkii ma fakari karo ama samayn karo soo garan maysid qof daciifa oo baaba oo dulli ah oo wuxuu noqonayaa meel aan waxba samayn karin oo waa loo imanaya gabadhiisa baa hortiisa lagu kufsanaya tuuba yani noocaas oo kale ilaahay subxaana wa tacaala ma ogola waqti waxaa la doonaya qofka muslimka inta la ilaaliyo inuu cizo yeesho oo sharaf yeesho oo karaamo yeesho oo la ilaaliyo oo sayid u yaho saa aan loola hadli karin saa ninkii kuu dhigta waa lagaa celinaya miyaa celinaya wixii nidaamkii waxaan ilaalin lahaa oo ummadda dhisi lahaa aawey waa ciidankii iyo jihaadkii wey waxa ilaalin lahaa dhibaata ayna haysta dhibaatadiisa uga baxnaa dadkii muslimiinta waxaa rabaa in laysoo dhaweeyo oo la fahmo cudurka meesha ku jira waa maxay ninka fahamsani maanta ama culummo ha ahaado ama caamo ha ahaado maanta fahamsan meeshii shalay madaarista lagu dhigaayey ee qur-aanka lagu baranayey ee aytaamta lagu hayey ee qaadkii sigaarkii loo diiday maanta iyadoo khamro lagu cabaayo oo qaad lagu cunaayo oo dugsiyadii la burburiyey oo gabdhihii la kufsaday ninka moodaya odhanaya nidaamkaasoo kaleeto waa wax fiican weeye oo waa laynagu sugay odhanaya waa nin mactuuha wax u dhiman yihiin marka maba xukunba uma baahna in la saaro ninka noocaas oo kaleeto infiruu khifaafan wa hiqaalan baa ilaah yidhi dadka muslimka markaa u gargaaraysa wixii aad yeeli karto wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum amwaasha ilahay hormariyaa biamwaalikum wa anfusikum labada shay maalkaa horeeya naftuna waa la socotaa kii aad dhiibi karta gee haddaad isku dari kartana isku dar haddaad isku darto iyo haddaad mid dhiibtana fadligaagu marba marka kale waa ka sii weyn soomaali yani rajo kale male oon diinahayn xaqiiqada taas wey waa inaad kooska diinta aad taageertaan codkiina waa in la maqlaa